bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal halkan waa reediyo kulmiye kusoo dhawaada qodobada wararkan idaahana maanta kuwooda ugu waaweyn. xubno ka mid ah beesha caalamka oo maanta ku biiray shirka madaxda mucaaradka maalintii afraad uga socda muqdisho. tobaneeyo qof oo muddo bilooyin ah maxkamad la'aan ugu xihan xabsiyo ku yaala deegaanada maamulka hirshabeelle. al-shabaab uu ku dhowaad 10 gaari oo ganacsato u rarnaa ku gubay duleedka magaalada xudur ee xarunta gobolka Bakool. golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo maanta shir degdeg ah ka leh dagaalada culus ee ka socda dalka Itoobiya. maamulka degmada Mahadana waxay gacanta ka taageen wax ka qabashada cudurro ka dilaacay degmadaasi oo go'doon ah. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka oo sii xulanaya xubnihii la shaqeyn lahaa marka uu xafiiska la wareego. iyo tirinta codadka doorashada ee Burkina Faso ka dhacday oo bilaabatay. mar kale duhur wanaagsan waa talaado 24 bisha 11 ee November sanadka 2020 warkan duhur Cali Ibrahim Cabdulaahi ayaa soo saaray Burhaan Diini Faarax iyo anigoo ah Farxii Xuseen ayaana si wadajir ah u soo jeedinaya markaana ku soo dhawaada dhageystayaal warkaasi oo faahfaahsan. aynu ku bilownay magaalada Muqdisho shirka wada tashiga ee musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya doonaya oo maalintii afraad galay ayaa maanta waxaa ku biiray qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed iyo ganacsatada iyo sidoo kale haweenka. waxaa sidoo kale la filayaa in maanta shirkan ay ku biiraan wakiilada beesha caalamka oo aalada Zoom-ka kaga qaybgalaya shirkan. wararkii ugu dambeeyay ee shirka ayaa sheegaya in galinka dambe ee maanta la soo gabagabeyn doono shirkan lagana soo saarayo warmurtiyeed ay ku midaysan yihiin musharaxiintan oo ku aadan doorashada Soomaaliya ee 2020-2021. warmurtiyeedka shirkan oo galabta soo bixi doona ayaa ah mid si aada isha loogu hayo isla markaana laga wardhowrayo dhawaqa ka soo yeeri doona musharaxiintan. Soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa doorasho guud oo isugu jirta tan baarlamaanka iyo madaxweynaha waxaana socda dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ku aadan doorashadaasi. tobaneeyo qof ayaa muddo bilooyin ah maxkamad la'aan waxa ay ugu xiran yihiin xabsiyo ku yaala deegaanada maamulka Hirshabeelle. degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaa muddo 70 cisho ah sifo sharci darro ugu xiran 34 qof oo isugu jira odayaal dhaqan iyo dhalinyaro. dadkan ayaa 18 bishii Sebtembar ee sanadkan waxaa laga soo qabtay tuulo hoos timaada degmada Cadalle ee gobolka Shabeellada Dhexe waxayna u xiran yihiin tuhun la xiriira dadkii culimada ahaa ee lagu laayay degmada Raagaceelle ee isla gobolkaas. odayaasha dhaqanka ee gobolka Shabeellada Dhexe iyo qaar ka mid ah maxaabiista xiran ayaa dalbaday in maxkamad la horgeeyo dadka xiran si dambi loogu helo ama loogu waayo. sidoo kale maxaabiista qaarkood oo la hadlay Keenin ayaa sheegay inaysan jirin ilaa hadda qof u timid oo su'aalo weydiisay ama baaritaan ku sameysay tan iyo markii ciidamada ammaanka ay ku xireen xabsi ku yaala degmada Balcad. xubno ka mid ah maamulka degmada Balcad ayaa Keenin u sheegay in dadkan ay ku xiran yihiin xarunta warshadii hore ee Sokorta halkaas oo aan u diyaarsaneyn qaab xabsi ah waxaana laga soo warinayaa xanuuno iyo dhibaatooyin kale. qof ka mid ah odayaasha halkaasi ku xiran muddo 70 cisho ah ayaa u warramay Keenin. waxaan ku xiranahay muddo 66 casho ay habeenkan igu tahay waxaan nahay 34 qofood waxaan ugu jira dad 70 jir oo mugdaadoodu hore u badatay waxaan ugu jira ilmo saqiir ah waa warshadii Balcad cid allaala cid taqaana warshadii Balcad oo dharka berigii hore dharka laga soo saari jiray waay waxaan rabnaa caalamka sida hay'adaha garsoorka inay laga soo gaaraan haddii aan dambi leenahay dawladda Soomaaliya 6 saac maxkamadna la soo taago qofkii dambigaas ayuu leedahay lagu qaado dadka saqiirada iyo waayeelada hooleedka heestana xurriyadooda loo soo celiyo xoolahoodina ayuu cid ka mas'uuliyeed oo gacantooda ka bixisay laga goor lahayd. sidoo kale ciidamada ammaanka ee maamulka Hirshabeelle ayaa maalmo ka hor soo xiray 22 qof kuwaas oo laga soo qabtay tuulooyin hoos yimaada degmada Warshiq. dadkan ayaa loo soo xiray tuhunno la xiriira dilwadareedkii loo geystay carruur iyo dumar kaas oo ka dhacay degmada Warshiq. sheekooyinka laga soo wariyay Warshiq waxaa ka mid ah in dadka la xiray oo la geeyay degmada Cadalle ay ku jiraan kuwa ehel dhow la ahaa carruurtii iyo dumarkii lagu laayay degmada Warshiq. Cumar Maxamed Cumar oo ka mid ah golaha deegaanka ee degmadaas sidoo kalena xilal ka soo qabtay Hirshabeelle ayaa ka warramay dadkii la soo xiray. sax way ku jiraan gabadhii iyo cunugeeri nafwaay iyo gabadhii kale mid dhaawaca alkuura way ku jiraan marka waxay ku dhacday aan leenahay adiga wada tashi la'aan ka timid maamulka state-ka oo yahay mid iska dheelmadeen waxay rabaan mataqaana oo shaqo qabsadeen
axmed meyre makaraan axmed faal guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe oo la hadlay KNN ayaan weydiinay sababta dadka iska xiran loo geyn waayo maxkamad si dembi loogu helo ama loogu waayo waxauna sheegay in dadkaas laga mashquulay oo ay maamulka iyo xubnaha kale oo ka hooseeyaba ku mashquuleen doorashada dadka la soo xiray waa runta dadka markii la soo xiray waxaa loo soo xiray inay hawshaas uun ayaga nafteeda maaragtay iska xiraadana la dhihi maayo baaritaankaasaa ku socday baaritaankaas sigoo socdaan haddana howlo doorasho iyo walaashay kale stateka qabsaday sidaas ayayna maaragtay hawshaas u hakatay qof kastoo lasoo qabtana inay maaragtay baaritaan marto haddii uu dembiga uu yeeshana dembiga uu yeesho lagu qaado haduusan lahaynna markaas maaragtay xorriyadiisa la siiyaa maaragta kuleeyahay kuwii dembiilayaasha ahay sidii lagu helayna laga shaqeeyo doorashaa lagu mashquula waxa la raadihayo oo baaritaanka lagu sameeyahayana dadku ma ahayn dad meel ku taagan oo isla 5 daqiiqo la helayo marka muddada baaritaanka socdana waa dheera kartaan awood waa u leenahay awood hadda tan aan u leenahay qabiyo weyn hayta waan qabiyo weyn awood aan u leenahay maayno waxa raaga waqtiga keenay ku adoo waa raagta kuna naqane waqtiga ayaa keenay waxa raagitaankuna wasiirka cadaaladda ee maamulka Hirshabeelle Cabduqaadir Cabdisalaam ayaa sheegay in kiisaska dadka xiran aan weli la horgeyn hay'adaha garsoorka oo aysan booliiska soo gudbin sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in Hirshabeelle aysan lahayn xeer ilaaliye baaraxad gudubyada booliiska lagu eedeeyo annaga wixii la soo gaaran ka hadli karnaa garsoor markii yiraahdo sharcigan wuxuu tilmaamaa garsooraha marka la hor keeno oo dacwada loo furo ayuu kiiskiisa amaba uu sameynaya laakiin wixii ka horeeyo waxaa iska leh baaris booliis ay soo maraysaa ayaga laga rabaa CID-da laga rabaa inay soo gudbiyaan booliiska keenaan laga rabaa hadii booliiska gaabiska yimid oo ay dad iska haystaan taasi madaxdii iyo waxa kula xisaabtami karo iyo dhammaan hay'adihii kale oo sharciga oo la galahay idinka wali idin xeer ilaaliyaha ayaa sharci ayaa ahaa in loo dacwoodo oo kiiska daba galo oo nimanka booliiska iyo sida xadgudubyada waxa soo la sheegay ka dabatay xeer ilaaliyaha guud ee maamul goboleedka Hirshabeelle Cabdullaahi Maxamed Gacal ayaa 22 bishii Agost ee sanadkan iska casilay xilkaas waxaana saacado kadib xil kale looga magacaabay dowlad goboleedka Galmudug Cali Guudlaawe Xuseen ayaa baarlamaanka khudbad ka horjeediyay intii uu wada ololihiis waxa uu sheegay inuu wax ka qaban doono dhibaatooyinka tacadiyada ama dhibaatooyinka kale ee la xiriira cadaalad darrada ee ka jirta deegaanada Hirshabeelle waxaa xaqiiqa amni ma jiraayo is-aaminaadna ma jirayso haddii aan garsoor ummadda u kala cadaalad falo oo si xaqa wax ugu kala xukmiyo haddii aan la helin waxaa xaqiiqa inaan amnina la sugi karin wada noolaasha iyo maaragtay wada jirna oona jiraynin intii muwaadin Soomaaliyeed iyo muwaadin Hirshabeelle uu tabanayo cadaalad darro ama xaq uu leeyahay in la duufiyay intuu arkaayo waxaan gaarayno wanaaga ma jiraan nabadgelyana imaama karto intii hal qof ay tabanayso cadaalad darro codkaas aad maqlaysaan wuxuu u dambeeyay warbixintii inoo diyaariyay waryaheena Xuseen Cabdulle Maxamed iminkana aan eegno gobolka Bakool al-shabaab ayaa la sheegay in ku dhawaad 10 gaari oo nooca xamuulka qaada ah oo u rarnaa ganacsato Soomaaliyeed inay ku gubeen duleedka magaalada Xudur ee gobolka Bakool dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa waxa ay gaadiid badan oo nooca xamuulka qaaday ay ku gubeen deegaano ka tirsan gobolka Bakool gaadiidka ay gubeen al-shabaab ayaa la sheegay inay ka ambabaxeen magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan iyadoona ay ku sii jeedeen degmada Xudur ee gobolka Bakool balse gaadiidka ayaa lagu gubay deegaan lagu magacaabo Imid Koore nabadoon Dirir Cabdullaahi oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Bakool ayaa KNN u sheegay gaadiid badan oo al-shabaab gubeen isla markaana haatan gaadiid kale ay ku xaniban yihiin deegaano ka tirsan gobolka Bakool baaburtan wali baa la gubay xalay abaarey madaxayti 7 saac bar wali ku gubay deegaanka oo qurac joome Ahmed Koore tuulila raayo qurac joome jarta 7 kilomitir nimankii baaburtan wali nafsi kooy jareena Hiiraan ku kooy gobolka Hiiraan baaburtan gobolka Bakool raashimada sheenasiyo qurac joome la ka diyaariyay kolonyada meelaha iska deerayeen ilaa iyo tumaysan baawar 20 baawar tuma baawar madina galaan oo baawar iskirin galaan kolonyada yaa ciidamada baxayeen wali la xaqlu wareegay qurac joome wali la sheegay gobolka Bakool waan gartay marka baawrtii mid kolonyada hasbeerti yaa wali la sameeyay bersho wali koona Ahmed Koore oo jarta qurac joome 7 kilomitir ya kooyan aanana wali roogana qurac joome waqtiga la diyaariyay fadhiidanka oo baxa fadhiina meelaha baawreeyta hasabaada ayaa baawrtan meelaha ka mareysayaan ciidamadina ma banne yaraabtan la fadhiyo inta la indiro
marka wali ku faa'iideysadeen kooxdii oo nabadiidka iyo ku faa'iideysadeen halay meelaya ka galeen yoo mootooyin iyo walangaado leeno wali baajidkii joomiiska ilaahay odur ila taasay ku kudiyeen. dhanka kale afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali ayaa sheegay in al-shabaab ay dab qabadsiiyeen 7 gaari oo nuuca xamuulka ah kuwaas oo lagu gubay deegaano ka tirsan gobolka Bakool. fiidnimadii xalay ayay al-shabaab gubeen 7 gaadiid oo nuuca xamuulka qaada ah banaanka hore ee duulada Emid Koorey ee gobolka Bakool. gaadiidkan oo ay lahaayeen isla markaana u ranaa dadka shacabka ayaa ka soo baxay Beledweyne kuna sii jeeday Xudur ayuu yiri afayeenka ciidanka. ilaa iyo haatan ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca al-shabaab oo ka hadlaya eedeynta loo jeediyay inay gubeen gaadiidka xamuulka qaada. golaha amniga jamciyadda qurumaha ka dhaxaysana maanta waxa uu shir degdeg ah ka yeelanayaa dagaalka culus ee ka socda wadanka Itoobiya ee u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka Itoobiya iyo waliba jabhadda hubaysan ee fallaagada ah ee Tigreega ee TPLF leeyahay. warkaan iyo wararkii ugu dambeeyay ee colaadda Itoobiya waxa ay noo soo koobay wariyaheena Cabdiraxmaan Sheekh Xasan. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta geliga dambe ka shiraya colaadda ka taagan gobolka Tigray. kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa imaanaya xilli dawladda Itoobiya ay sheegtay inay isku diyaarinayso sidii taangiyada dagaalka loogu weerari lahaa caasimadda gobolka Tigray ee Mekelle. ciidamada Tigreega ee la dagaalamaya dawladda federaalka Itoobiya ayaa sheegay inay burburiyeen 22 ka mid ah taangiyada dagaalka ciidamada Itoobiya. ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa xoogaga TPLF ugu baaqay inay 3 maalmood oo Arbacada ku eg si nabada dawladda Itoobiya isugu soo dhiibaan, isagoo sheegay inay ciidamadiisu hareereeyeen caasimadda gobolka Tigray ee Mekelle. ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijinaya xogaha rasmiga ah ee ku saabsan dagaalka ka socda Itoobiya. haddana labada dhinac ee dagaalku ka dhaxeeyo ayaa warbaahinadooda isku marinaya dacaayado la xiriira dagaalka. in ka badan 40,000 oo qof ayaa ka qaxay dagaalka ka socda dalka Itoobiya iyagoo gaaray dalka Itoobiya dariska la ah ee Suudaan. madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Joe Biden ayaa xoghaygii hore ee arrimaha dibadda dalkaas John Kerry u magacaabay wakiilka gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha isbeddelka cimilada. war ka soo baxay xafiiska Joe Biden ayaa lagu sheegay in John Kerry uu Mareykanka u qaabilsanaan doono arrimaha cimilada adduunka iyo heshiisyada la xiriira marka uu madaxweynaha cusub xilka la wareego bilowga 2021. warkan waxaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha cusub uu sheegay in uu diyaarinayo xubno u diyaarsan shaqada marka uu xafiiska tago. warbaahinta qaar ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha dhawaan la doortay uu hadda sii diyaarinayo gulihiisa wasiirada ka hor inta uusan shaqada kala wareegin Donald Trump oo hadda aqbalay in uu xilka wareejiyo.